السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة. waxaan rabaa inaan idin tusiyo detailkan waxa uu ku qoran yahay iyo bakteeriyooyinka oo dilayo amba oo dili jiray amba la dhihi jiray. xanuunkan maanta la sheegay ma xanuun ilaahay dhinaciisa ka socdo oo magac kale loo bixiyo miyaa mise magacan uu nagu cusub yahay? saad u jeediin taariikhdiisa kani wuu dhacay 19 oo dhacay 2019 ma aha yani wax hadda la soo gaday ma ahan, yani guri uu yaalay ayaan arkay markaasaan ka fiirinayay. qof hadda kor igu dhahay waa laga helaa, marka waxaan raadinayay wax all the date amba expirekiisa dhacay si aan ugu helo hadduu xanuunkaas ku jiray haddii kale. haddaad fiirisid meeshaasi kore sadarka koowaad waxyaalaha uu dilayo markaad fiirisid, sadarka labaad, kan saddexaad, kan afaraad muxuu ku leeyahay human coronavirus mujeedaa. kasoo tag haddana waxaad imaadaa viruska meeshii uu ku dhahayo viruska meesha uu ku dhahayo haddana imaaw fiiri waad ku arkaysaa coronavirus. So it's not something oo hadda wax cusub oo soo baxay, laakiin bini aadamka maadaama ilaahay ay ka jeesteen إلهنا سبحانه وتعالى نفس الدودي إلهي وحوليه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إلهي سبحانه وتعالى مركات أدو آئلودد إلهي نفس الدودوكو إلو سينيا وحي آد حنون قبتئي وحي كال اسم أجد مركاسا مركي وحكو ودعانا دوحان نقنيسا إنا تيه أقرتد تاسنا ورير بني إسرائيل على مدود أوهاي يتيهون في الأرض مركا إنت أنغي تيه أنقل لهيني xanuunka la isku ridi lahaynay oo stress ay xanuunkana la sheegay waxa kaaga muhiimsan waxaanu dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu sheegay. xanuunkana magac kay rabaa u bixiyaan, magacan horeeyo u jiray mush waxaad oo imaaday, laakiin xanuunka cusub magacay u laayihiin markaasay magacan u dul saarayaan, laakiin waxaad ogaataa inuu yahay musiib ciqaab Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo caradiisa keenay markii dhulka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo ka batay carada ilaahayna asaa inoo sheegay ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا إلهي حتى وحال امتحانك أو كسعودة ليذيقهم بعض الذي عملوا مركا وحال رأوا محوي لعلهم يرجعون.